Karibu, karibu mheshimiwa. Tukana sabe hadi. Wapi makofi? Makofi mheshimiwa Fara. Karibu mheshimiwa. Karibu, karibu, karibu mheshimiwa. Karibu. Karibu. Karibu mheshimiwa. Karibu. Karibu. صاحب كورة عين تقعد أهو بارك الله محجرة إن شاء الله ينسوا دبيو حلدمان كينا مشيميوا يوسف حسن أول صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واند السلام قعدت بلا نسكو سلانو. آدي بانو فرح سنة هاي فرحات يا شرف يا كرامة يتهاي إن كلا سوق يبقلو دبالدقة جبهة حرين توقعدين يجاهو سنة كورة دي كودي أفتنا رات وما تسوقايا كنتي سلام بانو درايا دمامبا سلاني يهمبلي أنو درايا دمامبا هالجمياشة إيو جيسين توسو هالجنتي هالجن كانوا سوقات سيماشة إيمان تجوكتو خاصهانا وحن درايا همبلية خاصة قدومي هوري أدميرال كأوينلف أدميرال محمد عمر عثمان إيو قدوميها عبد الرحمن مادي دكتور عبد الرحمن مادي وأنا بليين يا ماشي أي هل كان كسو غارسيين أيجو كسو سماي هل جميال عصب يهانقات كعصبة كذا شيء ومدن سومالية ده قبل كاسي كران قضية داسي رياض بينها أي كنوليهن marka halgankan waa halgan sii jiri doona ilaa inta uu ka gaarayo xornimo buuxda iyo maamulka dalkooda oo aanay qofna kala tashan adduunka marka waxaan leeyahay dhammaantiin hadaalina Soomaaliya oo dhan baa idinla jirta adduunka nabadda iyo xornimada jecel baa idinla jira waa qadiyad lama taabtaan oo xaq ah u dagaalamaysa xaqa shicibka Soomaaliyeed ee gobolkaas jabhadana qayb libaaxda bay ka soo qaadatay waana jabhada dhabta ah in anagu aqoonsanahay ee jirta ee u halgamaysa qadiyadaas marka waxaan leeyahay dib ha u laabanina horay u socda guul iyo gobonimo idin rajaynaya ilaahayna hanaga dhigo ummadii waarta ee sii jirta ee xorowda hambaliyo mar kale waxaan idin hambaliyeenayaa guul baan idin rajaynayaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu nagu soo biiray wadaniga Soomaaliyeed Faarax Macalin oo aad ugu faraxsanahay oo si fiican ugu soo dhaweynayo weligii waxaan ogaa inuu taageersan yahay qadiyadan xaqa ah ee jirta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش هذا الدمر وما نركها أنت بدنا. لكن وحيد بان ذي شيء ربع مغرب نوال الجوا وقت الدنبويان. قد يد نورته وقد قد يد حلال أو مقدس أو قصب oo cid kastoo adduunka ku nool inay garab yeesho garab oo xurriyadda jecel inay garab istaagaan ay ku qasban yihiin waayo waxaa meesha waddanka haystaa ogaadeenaya mise gobolkii Soomaalidii gumaysta ka qayb galay markii Afrika la qaybsanayo oo Berlin lagu kala gogoosanayo reer galbeed ay gogoosanayeen oo markaana ku faanay inay yihiin قوة رجال بيت يجاه كريستاني هل كان ميل في عم بوجاري أسأله جوشي أي تام وطهي هل كان يسمعوا دقيستا جوشي أنا وحبت شيرين
ayaa waxaa weeyaan guushii la tuuray madaxdii markii joogtay oo NLF iyo dadka ay la tashadeen ayaana tuureen anugu ma aqaana been meel laga sheego markii aad oranayseen Tigray baan la hadlayna la fariisanayna way jabtay Tigray markaa Mekele bay ku cararaysay 100 sano waqti ku afur baad ka dhigteen ummadda waxa la gooyay waa dadkiini markii madaxda ahaa 2 saacadood baan telefoon kula hadlaayay ninka la yiraahdo Macina Umar Usmaan admiraalki oo kulaha warkada waad garateen Soomaa haddana wuxuusan hureenin si kastoo adduunka gumaysta looga adkaan jiray qalin lagama adkaan karo gumaysta wixii laga adkaan jiray ayuusan hureenin kan meesha jooga anna waa la gumaystay anna waa lagu gumaystay aan heshiino oon ka baxnay ahayd khaa'in buu noqday abii waxa la halmaalo oo la shaqaysto oo Soomaali ahna waa khaa'imin Ilaahay ka furteen ninkii dhaqanka ahaa dhumay marka la soo helay muxuu yiri maxaa laga soo helay haddana berri baan dhumi oo ana la faayay madaxdeeda iyo raggan ciidan isku sheegayso dhaqannimo waa lagu sheegi jiray waana lagu sheegi jiray berri baad dhumaysan haddana haddii maanta aad gaartaan warwaadi maqashaan Soomaa inay maqlaan baan rabaa si fiican ii maqlaan oo ninkan iyo ragga la midka ay maqlaan kulli waan la hadlay berigi war meel dhow bay joogtaa war geedkaad u taagantiin war qarkaad taagantiin war way kala tagaysaa Itoobiya war gumaystii wuu jabay war suga war adkaysta anoo leh ayay u galeen oo dhaheen Tigray baan la heshiinanaa maxay suuqa soo istaageen waan la hadlay markii ay ahayd walaalkay aw hadda masuu cararay hadda durbadii masuu nala jooga aaway inay dhagamun waan la hadlay qadiyadan meel gabi ha ka tuurinaan war gabi ha ka tuurina anoo dagaalamaya ayaa gabi laga tuuray oo god lagu riday hadda waxaan idin sheegi war qadiyada mar labaad haddana gabi ha ka tuurina iimaanka Allah ka qaado ummadda nin alla ninka khaa'in oo dhuuni qaato oo macaan doono dhan baa Soomaali duleeyay tii jamhuuriyadda ahayd baa maanta dhuuni ku kala jabtay oo baaba'day 10 gobol bay u hagaajiyeen oo Itoobiyaan u hagaajiyeen idinka ka badbaada deerka waxaad ahayd ummadda Soomaaliyeed annaga iyo Itoobiya waxaan ku kala duwannahay annaga waxaan ahayn 44 qabiil oo Afrikaan oo Ingiriis u wada gumaysta hal mar gooni ahaan annaga ku keenna ma gumaysanin jalwana ma gumaysan xurriyadda markaan helay hadda dhaxdoodana mase kalenjin mase abaliya mase cid kale la gumaysta malaha haddana wadankii baan iskugu imaanay xaqa annaga waan haysanaa waana ka adagnahay waana u sheegay hadda koo idinka waalidan gumaystay xabashi baa idin gumaysatay gumaystaha sayto waxay la salaas iyo Menelikh iyo wixii la halmaar iyo eeydi oo dhanba waa in laga xoroobaa ninku doonahaada macal abi iyo ku kastoo dhanba waxba kama duuna abi kama duuna Menelikh kama duuna Mengistu Hayle Maryam kama duuna maalki maxay ahayd Meles kulligood waxaan rabnaa meeshii Meles u dambaysay iyo muxuu magaciisi Nasfin Sayuum iyo wixii la midka inay haddana godka ay ku dhacaan waadi maqasheen Soomaa cid quwad ka fudud 15 kun oo wiil Soomaaliya 1 milyan oo maxay nimankaas way u bardhigi kartaa waad gartaan Soomaa idinka un qadiyadiina ha iska gadina gudaha ku noqoteen maxay dabaqoodi meel kastoo dhan baan noqoteen magacii umba oo noqdeen haddana kuwana u dagaalamay u dhimay oo mujaahidiin ay noqonayeen kuwana ay boqmada goynayeen oo hunguri ay ka raacayeen war ma ay maqashaan mar damba qadiyadaas ay togudkii laga tuuray gabiga laga tuuray aan laga tuurin anna garab baan ninahay dib kastoo dhan baan u maray 6 jeer baa in la idilo isku day sababteeda mid daayade dhibaatooyin badan baa lii geystay laakiin sida aan islaamnimada wax kastoo lagu sameeyo aad ugu dhimanaysa tawxiidka taas baan haddana aniga diyaar ah inaan ku dhimanno inaan ku shaagaarno oo xurriyadda ay soo baxdo barakallahu fiikum maqrib baa la joogaan waan iga tagayaa aad baad u mahadsantiin waayahay aad iyo aad bay mahadsan yihiin halgame faarax